waa runtii inaan aniga ku iloobo aad iyo aad ayay igu adag tahay, balse inaad i ilowdo midaas waa mid adiga ku qusayso. Iska ilow fariimahan, balse weligaa ha ilaawin qofkii soo diray. Haddii ay 1000 gabdhood ku jecel yihiin, aniga waan ka mid ahay. Haddii ay hal qof ku jeceshahayna, qoftaas qof kale ma ahan ee waa aniga. Haa, waa aniga. Xabiibi, haddii aad tahay qofka labaad ee aan jeclahay, aaway qofka koowaad ee aan adiga kaa jeclahay? Jawaabtu waxay noqonaysaa maba jiro qof aan adiga kaa jeclahay. Jacaylkayga koowaad waa adiga. Noloshayda idilna adiga ayaa iska leh. Mid ma ogtahay macaane, haddii riyada la dalban karo, Allah subxaanahu wa tacaala waxaan ka dalban lahaa inaan adiga kugu riyoodo. Aniga naftayda adiga ayaan kaa jeclahay. Waxaad tahay tuug, qaa'in, weliba tuug weyn ayaad tahay, sababtoo ah wadnahayga ayaad xaday. Maba aanan sifayn lahayn arrimahan oo idil haddii uusan jacaylkaagii i qaadi lahayn. Waan ku jecelahay adigoo ii dhow, waan ku jecelahay adigoo iga fog. Koonka waxa saaran adigaan kuu jeclahay. Suldaankaygiyo mid maankaaga waa inaad gelisaa. Adiga waxaad tahay jacaylkaygii ugu horeeyey iyo weliba jacaylkaygii ugu dambeeyey. Mar walibana agtaada ayaan ahay.